wax ka ogow sheekada ku saabsan Hibo. Waxay wacd ku martay in aysan seegeeda weligeed ka tagayn. Waxay tiri geeri unbaana kala geysaa. Baryo badan, baahi badan iyo bugto badan ayaa la isku nacaabay tiraahdaa Soomaalidu. Waxa adag in la isugu dulqaato xanuunada raaga ee u muuqda in aan laga biskoon, laakiin taasi Hibo oo ah habeenay reer Masar ah kama weecin in ay garab istaagto seegeeda oo xanuunsaday ku dhawaad 5 sano muddo hadda laga joogo. Dhagaha ayay ka fureysatay warxumo tashiilka, isagana waxay ku qancisay inay u xambaarto isbitaalka oo lagu dhaqo kaliyaha. Dhibaato ayaa soo gaartay intii ay dhabarkeeda ku qaadaysay aabaha caruurteeda. Waxaan iska waxyeelayay laf dhabarta intii aan isaga qaadayay dhabarkayga ayaan ku qaadaa. Waxaan xambaarayay muddo dheer, xataa waxaan la fuulayay dabaqa sare. Dhaqaatiirtu waxa ay sheegeen in aan wax culus qaadin. Waxaan u sheegay in aanan wax culus qaadayn. Waxaan xambaaraa kaliya saygayga. Saygeeda ayaa ka sheekeeyay qisada xanuunkiisa iyo gacanta uu ka helay afadiisa Hiba. magacaygu waa Qaalid Albadawi Maxamuud Aljadca 6 sano ayaa la noolaa xanuunka kaliyaha oo laga dhaqayay kadib markii ay fashilmeen. Waxa aan la dhibaatoonaya kaliya xanuun. Waxa aan qabaa cagaarshow nooca B iyo C, lafo burbur, beer weynaad, wadnaha oo liita. Dhaqdhaqaaqa gacantayda bidix waa ay xadidan yahay. Xaaskayga ayaana i qaadaysay ku dhawaad muddo 5 sano ah. Markii hore aan u jeediyay in aan xambaaro aragtidaasi waa ugu diiday sababtoo ah waxay dadku leeyihiin ayaan u sheegay. Yaaba daneynaya walow aragtida dadka qariib ay ku tahay waxa ay dareemayaan oo ay u maleynayaan in ay tahay wax la yaab leh. Mararka qaar waxaan ku qaadaa garabkayga, mararka kale dhabarkayga ayaan ku xambaaraa. Waxay u weydiistay inaan dhigo. In yar ayaan sidaasi sameeyaa. Kadib dhabarkayga ayaan ku qaadaa. Dabaqa sare ayaan kala dagaa. Wadada ayaan ku xambaaraa. Waa kaliya dhaqista 3 jeer toddobaadkii. Waana maalin dhaaf. Ma uusan ahayn qof soo shaqeeyay. Aniga ayaa soo ahaa qofka kaliya ee shaqeeya. Waxaan goobaha qashin qubka ka soo ururiyaa kartoomo iyo balaastigada ama wax kale oo la mid ah si aan sare ugu qaado dakhliga ama caayshka caruurteena. Markii ay sheekada Hiba gashay baraha bulshada, dad ayaa ugu deeqay gaariga curyaaminta ka oo si fudud ugu qaadi karto saygeeda. Waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay oo inoogu naxariistay in uu inoo soo diro dad qaadi kara. Ilaahaas ayaa ku mahadsan. Waxaan ku qaadaa gaariga gurmadka ama ambalaasta. Hadda iyada ayaa lagu qaadaa oo isbitaalka lagu geeyaa si loo soo daweeyo. Waligay kuma fakirin in aan ka taga isaga. Waa seegayga waana caruurteyda aabahood. Inta badan waxa uu i weydiiyaa haddii aan rabo furiin. Waxa aan wacad ku maray in aan ka tagin ninkayga. Geeri unbaana kala geysaa. Geeri unbaana kala geysaa. Waa go'aan geesile ma leh oo ay adag tahay in qof walba uu qaato. Waase go'aan ay la timi Hibo oo sheekadaani ay qusayso.